waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa dadweyne badan oo ka soo laabtay xeryaha qaxootiga oo muddo socdeen qayb kamid ah oo maanta imaatay Elborg Kismaayo waxaan leenahay ku soo dhawaada dalkiini dadkan muddo badan ayay maqnaayeen dalka maqnaayeen haddana waxaan ku faraxsanahay inay dib ula midoobaan qoysaskoodii eheladoodii saaxiibadoodii dhammaan inay dib ula midoobaan waxaan ku faraxsanahay soo dhaweyntooda ayaan ku faraxsanahay waxaan ka shaqeynaynaa sidii bulshada si dhaqso leh ay ku dhaxgal lahaayeen oo ay ku noqon lahaayeen dad dalkooda ku soo laabtay dad foreigners inaysan noqonin mar dambe waxaan tusaynaa jacayl fara badan oo aan qabnay inaan dib u aragno bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxa la yiraahdaa Cismaan Maxamed aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta anigoo ma taqaanaa muxuu ahaa dalkayga hooyo si wacan oo wanaagsan liigu soo dhaweeyay dalkayga labaadna si nabad ah naga soo baxay hay'adaha sharafta leh oo maxaan ku radaa UNHCR ay ma taqaanaa u weyn tahay si sharaf leh ma taqaanaa ay noo soo direen dalkanaga hooyana waan imaanay insha Allah Rahmaan waxaan rajaynaynaa in si wanaagsan oo sharaf leh in ma taqaanaa nalo qaabili doono muxuu ahaay dawladda dhexe ama ma taqaanaa maamul goboleedka Jubbaland si wanaagsan in maxaan ku radaa waxaan ka codsanaynaa ay ma taqaanaa ay noo soo dhaweeyaan raxmatullaahi wa barakaatuh waa idin salaamay dhammaan inta ku nool wadankayga iyo intii oo hadda arkaysa iyo intii ila taaganba waxaan ka imid xerada qaxootiga Dhagaxley ee Dadaab marka waxaan u imid wadankaygii alxamdulillah ilaahay baa mahadaas iska leh si sharaf iyo nidaam iyo wanaag leh waa ku soo tagay si sharaf iyo wanaag iyo nidaam leh waa liigu soo dhaweeyay marka wixii kulli ma taqaanaa wadankayga ii yaalan hadda waan u imid oo waanba heli doonaa wixii wadankaas Kenya aan hadda ku soo arkayna waaban soo arkay wax iga soo tagay waay marka sharaf iyo nidaam iyo wanaag iyo walaaltinimo waa liigu soo dhaweeyay magacayguna waa Maxamed Nuur Maxamed Cabdiraxmaan